waxaa maanta magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle kulan ku yeeshay odayaasha dhaqanka dhalinyarada iyo haweenka mid ka mid ah beelaha deegaanka gobolka Shabeellada Dhexe isla markaana ay ka soo qayb galeen musharaxiinta ku tartamaysa kursiga tirsigiisu yahay Eber 33 ayaa ujeedkiisu ah in raaligelin laga bixiyo gaf ay geysteen qaar ka mid ah musharaxiinta u tartamaysa kursigaasi waxayna sidoo kale qaybaha ka soo qayb galay kulankan ay sheegeen in raaligelin ay siinayaan madaxda dowlad goboleedka Hirshabelle wabarka guud ee beesha wabar Cabdullaahi wabar Abuukar wabar Axmed ayaa sheegay inaysan jirin cid gaar ah loo xiray kursigan isla markaana raaligelin ay ka bixinayaan gaf loo geystay madaxda ugu sareysa dowlad goboleedka Hirshabelle annagoo ah beesha Kabaalla Wacbuudhan oo ah anigoo duubkeedii ah wabar Cabdullaahi wabar Abuukar wabar Axmed meesha waxa u nimid qadaf meeshan ka dhacay Shabeellaha Dhexe annagoo u nimid deegaan doorasho loo gafay meeshii aan isugu nimid Shabeellaha Dhexe oo loo gafay madaxweynihii Hirshabelle Cali Guudlaawe waxaan ka raali gelihaynaa annagoo Kabaalla Wacbuudhan Saacadiya Xaaji Xuseen oo ka mid ah haweenka beeshan ayaa dhankeeda ka hadashay kulanka meeshaan waxaan u imaanay doorasho madax furan waxaan doorasho oo kursi xiran uma imaanin doorasho waxaan u imaanay madax furan to beelweynta Kabaale waxay maanta raaligelin buuxdo ka bixinaysaa madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudlaawe musharax Maxamed Xuseen Sabriya ayaa sheegay in Hirshabelle ay u gafeen musharaxiinta maanta warbaahinta la hadashay isla markaana iyagoo raaligelin buuxda ay bixinayaan laakiin waxaa aad yaab u leh musharaxiin kale walaalahay ah 48 hour joogay ama 48 saac joogay haddana dowlad goboleedka eedaynaya Hirshabelle oo runtii la og yahay Hirshabelle doorashadii ay qabatay hadda ugu dambeysay annaga naga horeysay aqalka sare wixii ay mutaysatay ee amaanaha ee maxaan ku iraahdaa ama dowladda Soomaaliya ama beesha caalamka international community-ga ay amaan ka heshay oo ay haysato magacaas haddana in walaalahay musharaxiinta ah ee muddo yar joogay 48 saac iyagoon maxaan ku iraahdaa waxba eegin oo aan waxba fiirin welina doorashadii dhiman tahay musharaxaan ahana ay yiraahdeen inay inta eedeeyaan haddana maanta diyaaradooda fuulaan ama ay magaalada gaar ka galaan musharax Xildhibaan Yuusuf Ibraahim Afrax Kabaale ayaa sheegay in dowlad goboleedka Hirshabelle raaligelin ay ka siinayaan musharaxiin maanta Jowhar ku qabatay shir jaraa'id kuwaasoo ku dhaliilay madaxda dowladda Hirshabelle laakiin wax lala yaabay kursi aan waagaba ergadiisi la qorin oo aan doorashadiisi la gaarin in maamulka Hirshabelle sharaftiisa wax lagu gaarsiiyo amba lagu eedeeyo ayaa waxa wax la yaab leh marka anu ku hadlayne magaca iyo mas'uuliyadda raaligelin buuxda ayaan ka bixinaynaa dhalinyaradii oo kamid ahayd beeshan wixii yaray oo qadafayo ka soo yeeray oo maamulkan uga soo yeeray maamulka Hirshabelle waxaan ka sugaynaa oo madaxweynuhu ugu sareeyay si cadaalad ku jirto kursigaanya cid allaale kii maqan iyo hadda labadan ay joogtaba inuu u furaado oo hal cid oo buuxiyay sharuudaha oo kursigu leeyahay aan tartanka laga reebin Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadan warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Jowhar